السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن وناكسن داوديال meel kasta oo nagala socotaan ku soo dhawaada barnaamijkeeni arrimaha bulshada oo toddobaadkiiba mar aad ka daawataan TV-ga qaranka xaruntiisa magaalada London. Daawadayaal barnaamijka arrimaha bulshada sidaad ogtihiinba waa barnaamij u adeega bulshooyinka reer Soomaaliland meel kasta oo daafaha dunida kaga nool yihiin. Maanta waxaan ku soo qaadanaynaa wadada dheer ee isku xidha magaalada Ceerigaabo iyo Burco oo dhismaheedu socdo muddana oo laga waday caalamka meel kasta dadka reer Soomaaliland ee ku nool sida ay uga qayb qaadan lahaayeen sidii wadada loo dhisi lahaa maadaama wadanku uu yahay wadan aan horumar weyn gaadhin wadan hadda soo koraya waxa loo baahan yahay in dadweynihii wadankan lahaa ay ka qayb qaataan waxtarka wadanka iyo horumarka iyo wadooyinka iyo waliba isbitaalada iyo meel kasta oo bulshada faa'iido u leh waxa martii noogu ah barnaamijka arrimaha bulshada gudida wadada isku xidha magaalada Ceerigaabo iyo Burco hablaha waliba qaar kamid ah hablahaasi gudidu way fara badan yihiin laakiin waxa martii hablaha kamid ah gudida isku xidha wadada Ceerigaabo iyo magaalada Burco waxa dhinacayga midig fadhiya Faaiisa Maxamed oo kamid ah gudida isku xidha wadada Ceerigaabo iyo magaalada Burco aan markale idinku soo celiyay iyo waliba Amran Bile oo ku xigta iyo Rooda Maxamuud marka hore aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin sida wanaagsan ee nogala soo qayb qaadateen barnaamijka arrimaha bulshada haddaan barnaamijka aan guda galno waxaan ku horeynayaa Faaiisa oo aan isleeyahay waa kugu sukaysa Faaiisa ahlan wasahlan ku soo dhaw barnaamijka arrimaha bulshada aad iyo aad baan mahadsantahay Furqaan iyo TV-ga qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland baan u mahadnaqaynaa martiqaadka maanta nagu martiqaadteen gudi ahaan Faaiisa sidaan ognahayba gudida wadada isku xidha Ceerigaabo iyo magaalada Burco waqti dheer may soo jireen oo dhismaha wadada dhawaan baa la bilaabay goorma ayaa la idin magacaabay yaase idin magacaabay waqti badan ma soo jiro waa muddo ilaa 3 bilood hadda laga joogo gudiga waxa la magacaabay markii ugu horreysay waxa la sameeyay gudi qaban qaabo oo ka sii hawlgelisay markii wasiiradu soo kicitay gudigii uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu u magacaabay dhaqaale ururinta wadada Ceerigaabo iyo Burco isku xidhaysa marka waxa la sii abaabulay gudi qaban qaabo oo rag iyo dumarba ka koobnaa ayagu iskood si xilqaamay dadka gudigaas waxay sameeyeen xafladii bandhigii weynaa ee dhaqaale ururinta wasiiraduna ay yimaadeen iyo guddigii kale maxay tahay qaban qaabada ayaguna dhaqaale ururinta marka waxa after xafladda kadib dhaqaalaha lagu ururiyay wadada Ceerigaabo 16 November wixii ka dambeeyay dhamaadkii beginning week ugu horeeyay December ayaa gudigan la magacaabay waxaana ka kooban yahay 19 qof oo rag iyo dumar ba leh aad iyo aad u mahadsantahay Faaiisa ku soo noqon doona Amran ahlan wasahlan mar kale ku soo dhaw barnaamijka arrimaha bulshada Amran su'aasha aan saaxiibada weydiin ku weydiinaya yaa idin magacaabay yaa si gudida soo abaabulay markii ugu horeysay ما يقول مركي هربتي جودي ده مركي ده وسيرة ده جودي يدي سكوت شو متضوعين أي شقة سفي عن قبتين مرلبات كي أنتي أي شوفتي وفتي جها قرنا من دحين صوم قعابي كل وده تشيء بدن أو كل شيء ده لحدة ده كان هاي أما وده رقم ده هاتو مركي أي جودي ده سكوت شيء جودي دي متضوعين تهايد ربتين شقة قبتان ما أنتي قرحت بدنا اللي هي بعد اللي هي ترونكي نفبر دعدة أي xilkoodii dhameysteen kadib gudidii heer qaran intii ay joogeen kulli waxa laga maarmay in la sameeyo gudi joogto ah oo dal la xisaabto maadaama ay waxan tahay wax muddo dheer soconaya marka kulli saan filayo wada tashiyo badan oo bulshada dhexdeeda aqoon-yahankeeda ama madax dhaqameedkeeda ha noqoto safiirka Soomaaliland ama safaaradda ha noqoto iyadoo halkan u joogtay wasiirada laftooda kulli barbosalada meel kala duwan bay ka yimaadeen kadibna dadka intii la isla gartay markaasi ayaa la soo xulay oo ka kooban 19 xubnood anagoo ah 5 dumar iyo 14 rag yaa markay isla gartay markii la isla gartay waa hadda tiriyaa isla gartay oo soo xulay kulli wada tashiyada gudida anagu waa naloo yeeray telefoon baa naloo soo diray laakiin waxaan sayde u eeg tahay waxa weeyaan bulshadii ciidan dadkan soo xushay waa la isla eegay kulli wax kasta oo lagu dhawaaqay waa la isla eegay kulli safiirka Soomaaliland iyo gudidii wasiirada ahayd ayaa arinta eegay markii ugu dambeyntii man jeclahay malaha kulli wadankii waa loo gudbiyay saan maqlay oo madaxweynaha gudida heer qaran xagga waa loo gudbiyay saasana lagu soo magacaabay marka ma oran karnaa imika dawladda ay idin soo magacaawday gudidiina mise dadkii voluntary-ga ahaa ee wadankooda mutadawiciinta ahaa caawinay ay idin magacaabay ma dawladda ayaan jeclay inay soo magacaawdo صح هذه أدوات ما سنتي أمرنا وان كوجو سولا بندونا أن روضة محمود أهلا وسهلا مركل كوسو دو برنامج كارمها بالشدة أهلا وسهلا روان بعد ما سنتي روضة سيدا إنه شيئا فايسة إيه أمرنا با
guddiga la soo magacaabay ayaad ka mid tahay ee dawladda soo magacawday xageed ka howlgashaan magaalada London gudaheeda mise meelo kale oo dalka Ingiriiska mise adduunka meelo kale oo kamid ah ayaa jirta oo lacagta ka soo ururisaan runtii guddiga aan anagu ka soconaa waa London guddiga 18 qof ee ay runtii faa'iisay ama 19 qof ee amran iyo faa'iisaba sheegayna waxa weeyaan guddi runtii ka kooban London baan nahay magaalooyinka kale iyo dalalka kale way leeyihiin guddiyadooda waxaanu ka mas'uulnahay oo ka wakiilnimo dawladda uga wakiilnimo bulshada halkan degan ee reer London sidii looga heli lahaa lacag inaan anagu abaabuloon dadna ku sino ma 19 qof kaliya ayaa bulshada London degan ka ururinaysa mise dad kale oo idin la sii shaqeynaya ayaa jira runtii 19 uu hormood baan ka nahay isla intii aanay guddiga wasiiradu tagin bada guddi hoosaad gobolka Sanaag ka koobanba way jirtay oo sii magacaabay marka waxa la rajaynayaa runtii aragtidu way tahay in magaalada London aad bay weyn tahay 19 qofna ma wada gaari karaan guddi hoosaadiyana waa naloo goliyo inaan samaysano marka labadii guddi hoosaad ugu horeeyay runtii xaafadaha ay ka tirsanayeen way samaysantay inta kalena waa looga fadhiyaa cid ku sii adeegta marka anagu si ay u egtahay wax weeyaan abaabulayaal baan neel laakiin hawsha bulshada weyn bay ku dhacaysaa qaabkeed u shaqeysaan marka qaabka loo shaqeynaya runtii horta 3 bilood baan uba jirnay imika marka waa mid koowaad ee horta isbarashadii xubnaha guddiga kamid oo qaarkood hore isu arkay aan ahayn dad hore wada shaqeyn lahaa aan ahayn ba ku jirta meesha marka kulli hanaankeedina runtii waanu haynaa ilaa hadda waxaanu ku guuleysanay inaanu samaysano qorshihii shaqada ee lagu wada shaqeysan lahaa qorshihii shaqo ee lacag lagu ururin lahaa muddo dheer strategic planki oo no approve dhowr shir waanu qabsanay lafteeda tigidhadii receiptskii lacagta dadka lagu ururin lahaa lafteeda waan ku guuleysanay inaan samaysto marka 3 bilood gudahood waxaan leeyahay waan badana iyadoo intaan kala fogyahay waan kugu soo noqon doonaa rood aad baad mahadsantahay marka Faisa muddada aad shaqeynaysan waa 3 bilood ama 4 bilood aan jecelahay maxay idin qabsoomay 3 bilood runtii horta waxa weeyaan waxaan oran karaa hadda waa ilaa January December ilaa January iyo hadda oo February ay si gabagabad joogto inta waxaan sameeynayna horta sidii guddigu loo sameyn lahaa guddi hoosaado hoos oo guddiga la shaqeyn lahaa xaafadaha qaar eeriyada London aad bay u ballaarantay sida Rooda sheegtay 9 يعني إيريوين كلو كستوان كسو كل جدنا أو لندن أي كم انتهاي أي كوبين هن 19 قف لكن هدنا 19 قف وحلقة حافظ بين هالقف وإيري جار لندن كيمي لكن وليه هي يعني مانديت كوكسمين لها قدي هوساد هوسة مركا حافظوا البحر جسوا إن سب كميتي هوسة أي سميسته مركا سب كميتي جس أيوه هوشي أيوه يقول هذا كم إذا قدي جا وجسرية أي كود الشقة قلي لهاين أنت وحناقص سمي يعني إن أنو يعني وحنو gacanta ku hayna anagu qaadaan ururintii 16 November warqadihii iyo foomamkii lagu ballan qaaday ee pledge-ka dadka ballanqaadkaas oo foomam miiran ahaa oo dhowr boqol qof yani foomamkoodii inaanu foomamka hagaajino oo dib u type gareeno oo lacagta kala saarno oo reer Sheffield dhaqaalahoodii ayaga dib gudigooda ugu celino Birmingham sidoo kale gudigooda dib ugu celino oo ayagu xaggaas raacay markii dambe ee gudigooda loo sameeyay marka intii badnay waxa ku mashquulsanay saan u kala gudiga aan u dejin lahayn strategy plan ka loo sameyn lahaa sidii looga hawlgali lahaa waqtiga nagu soo foole bilaha nagu soo socda aanu uga dhaqaalaha ururin lahayn sidii loo ururin lahaa maxafladaha lagu ururinaya maxafadaha la tagaya rasiidadii marka runtii waxaan ku jirnay iyo maxaa la yiraahdaa account in la furo sidii aanu u shaqo gali lahayn baan horta intii hore ku mashquulsanayn aanu dhowr shiro badanna aanu qabanay imika laakiin alxamdulillah way noo dhamaatay hadda waxa in geedi socodkii hanaankii sida la ururin lacagta waxaan nooga soo baxay inaan fikrado iyo ra'yiyo badan la isweydaarsan lahaa sidii qaabkii ugu fududaa way lacagta laga doonayay London aad iyo aad bay u fara badan tahay ugu yaraan waa lacag gaaraysa 2 milyan ayaa la saaray dhaqaalaha London marka 2 milyan yani waxay u baahan tahay wajigii lagu heli lahaa wajiga face-ka koobaad marka runtii siyaabo badan baa la isla eegay in lacagta lagu ku soo xiroon karto mid waata hadda already ballanqaadka dadku ballan qaadeen oo waxna soo xiroodeen waxna wali maqanihiin midda labaadna waxa weeyaan sidii dadka reer Somaliland ee dhamaan London ku nool daafaheeda sidii loo wada abaari lahaa ee loo wada gaarsiin lahaa baaqa
maxay tahay wasiirada iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu soo gudbiyay shacabka reer Soomaaliland marka alxamdulillah runtii wax badan way nooga hirgaleen shirarka badan oo aanu qabsanay ra'yiyo badan waan wadaagnay sidii 6 bilood soo socota aanu horta meel fiican aan u gaari lahayn insha Allah oo dhaqaalahan intiisa badan ay u soo xiran lahayd ayaa noo qabsoomay alxamdulillah waxaan kugu soo noqon doonaa amran sida ay rooda iyo faysaba sheegan waxa la idin ogol yahay inaad guddi hoosaad samaysataan mas'uuliyad weyn way idin saaran tahay mar haddii la idin ogol yahay inaad guddi kale samaysataan oo idinka hoos shaqaysa ma idinku jirtaa taladiina inaad magaalooyinka kale ee London ka baxsan guddi hoosaad ka samaysataan kuwaas oo ka soo ururiya magaalo kasta ay degan yihiin walaal wax weyn horta anagu markii hore UK maalintii 16 dadku aad bay ma sha Allah u wada yimaadeen meel kasta UK waa laga wada yimi dadku way ku wada ballan qaadeen lacagta way wada joogeen every tuulo waa laga yimi kadib markii dambe la isla gartay in way badan yahay la kala qaybiyo magaaladii London waxa yaani ay gudideedu u badantay markii ay gudidu u magacawday waa magaalada ugu badan yihiin dadka degan ama lacagta u badan la saaray dadkuna u badan yihiin saas darteed gudidu intii ay joogtay gudidii heer qaran ee madaxweynuhu soo magacaabay waftiga ahayd way tageen magaalooyin badan oo UK way qaybiyeen lacagta qaadaanka way saareen tuulo kasta qolo kasta iyada ay sabaabushay marka wax kastaana kulli waxay u fiicantay marka la daadajiyo qolo walba ay sida waxay iyadu soo urursato London lafteedu waa afar waaxood bay tahay marka anagu imika waxa muhiimada noogu weyn ay tahay inaanu London subcommittee laga sii sameeyo oo maadaama waxaan tahay wax horta ilaahay loogu dhawaanayo in ay yacnihi umabay baahateen in dadka la daba galay waa in qof kasta accountkiisu wax dhiganaya oo isagu qof kasta ku soo degdego oo yacni anagu facilitator baanu nahay marka in London يعني dadka la sii faagay meelay wax ku soo hagaajinay sidii wax looga la sii kala fududeeyay mooyaan tuulooyinka already wax tuulooyin ma oran kareed magaalooyinka Kalbarmeen baa caasimadii labaad waxa qaatay gudidii heer qaran baa u magacawday lacagoodii oo reer way sabaabilan mala TV-da waa ka aragteen iyagu isku maqayn insha Allah ta'ala okay mar haddii magaalo walba gudi ay dawladda soo magacawday ay jirto xiriir inta la eg idinka dhaxeeyo gudiyada kale iyo idinka والله صوفار واحد حرير أنا قد حياة مترو قد إذا واحد مقعودي قد ذي مقالين كواحد تجي قد ذي هالقرن هم قامين يصير دولة أوكي ترى وزير ك مدحتويد مركز تري قد ذا يا تكتي مقالين ك أنا قوي ترينو واحد نقر راعي وذا كم إذا قد ذي ذا يا الله السعودية أنتي راعي لكن قالوا البوي السبب الشيء قالوا بقد ذي بقار السماء سطحي لو السماء مركا iyaga adees isasi maamulay kale waxaan wax ka tagaynaa gabdhaha ku daray rada amran sidii hadda noo sheegtay magaalo walba gudi baa ka dhisan bay tiri miyaana wacneen meel kasta haday gudi ka jirto hadafkiina uu mid kaliya yahay in wadada la dhiso oo wadanka loo adeegayo inaad xiriir wanaagsan ka shaqeeyo oo wada shaqeysaan miyaana wacneen runtii way ku qurux badanaadahay inkastoo hawsha lacag ururinta ay aad iyo aad u balaaran tahay malaha iska warhayntu way fiicnaan lahayd maadaama wadankii la joogo laakiin haddana qaab baa jira imika inta nafteeda samaysan oo guddiga qaran ee wadankii joogta ay la xiriiraan dadku because guddigaas cid waliba gruubkeeda way leedahay iyagaa toos ugu jira marka sida lacagta ururinayaan weeyaan ujeedada soo moogid taana mid walba uu kaaga ka soo buxun baa horta muhiim ah runtii kulli maalin baa iman doonta insha Allah inta la isugu reeyay gudiyada iman doonta ayaan isla laakiin kulliba mid walba dantiisi baa la saaro leeyahay adigu barta halkaaga ba oo iyada lafteeda hawl badan runtii waa hawl badan wadooyin kale ayaa jira oo wadanka laga dhisayo horumarku kaliya ma wadada ceergaaba waxyaabo badan baa wadanka laga dhisaya idinku ma wadada ceergaaba kaliya aad ku koobantiin mise wadooyinka kale oo aad ka qayb qaadanaysaa runtii anagu waxaan ka masuul wadada ceergaaba imka wadooyin fara badan oo reer kasta ay horta wadadiisa isaga ku mashquulo dhista waxaan soo filayaa runtii wadada ceergaaba waxa weeyaan waa wada waa mashruuc qaran waxaan runtii ugu muuqataa inuu noqdo uu yahayba mashruuc mideeyay Soomaaliland mid kale ka oo runtii wuxuu ku mideeyay horta waxay ka soo baxday dawladda dhexe Soomaaliland oo runtii ay ka go'an tahay inay mashruuc samayso inay mashruuc hirgeliso marka horta waa mashruuc runtii qaran waxaan qaran ku yahay anigu runtii dadka aaminsan oo ugu jiraan oo aaminsan inuu mashruuc qaran u ahaadana de horta reereen ka kooban reer ka soo jeeda wuxuu ku aasan yahay sanaag
marka runtii in inta loo arko lagu midoobo qof walba markuu doonayo reerkiisii tago dadku halkaas u joogaaye marka reer walba reerku ka soo jeeda sanaag buu ku aasan yaa ku aasan sanaag awowayaashii baa ku aasan reeraha ka kooban oo dhan Soomaaliya reer kumada reer walba awowgu magaciisa sheegta halkaas ku aasan awow oo dhan sanaag buu ku aasan yahay maxay suugaya awowada halka ilaahay yaa garanaya taasina weynaan degina waa taariikh jirto oo riba runtii oo garanaysid marka way ku hubaal weeye reerka soo aan ku abtirsanaa aniga reerkayga kale in ku daalan ku abtirsanaa daalan reerku degay aad ka dhawaajisay reer aad tiri wadada reer ma laha dadkoo dhan bay u dhaxaysaa oo Ergaabo waa magaalo Soomaaliland waa sanaag caasimadeedii way ka go'an tahay laakiin wadanka dariiqa dartibeena uga go'aneed wadanka aad iyo aad ma waxaad leedahay wadadaasi reerkeedii un hadistaan mise dadkoo dhan ha u kacaan kulli anigu runtii waxaan ka soo jeedaa development background oo ku shaqeeyaaba gobolka Sanaagna anigu xagga xamar ka ibi oo ka shaqeynayna way jirtay anigu xagga Soomaaliland ka tagay aan ku gaarnay rafaadna way jirtaa runtii waa gobol haddii aad eegto Sanaag aad iyo aad gobolada wadanka inta ka leeyahay gobolka ugu khayraadka badan leh badiyo bariba oo ku sheegay marba jirto cabbage wadanka laga isticmaalo ilaa geeska Afrika inta tirka leeyahay ama Djibouti ha ahaato Kenya ha ahaato cabbage ka soo baxay Ergaabo ayuu kala isticmaalaa deemkana way joogtaa beeyadii baa ku joogtaa qorigiida ibka ku jooga badii baa ku joogtaa marka khayraad wadan haday noqoto runtii Ergaabo meel ugu wanaagsan ma jirto dalxiiskii baa dadka ku dartaa oo dhanaysa dad marka la soo baday garan karaysa waanu inaga fogyahay shukuraadi aad buuxay qof meesha tagay intuu roob ku daay ugu roob ku helay saddex xisho fadhiyay baad garan karaa kawaasan ka bilaabay waan garan karaa runtii 3 nights 3 days baan xagaan looga iman saraar ku jir sababtoo marka wadada loo baahay tan waxaan yaraa halka soo khafiifiyay inta jacayl inay ku marmarsooto maxaa Ergaabo kaliya loo leeyahay magaalooyinka raajay saashan halka saad iga bilowday magaalooyinka loo weejiraan ayaan leeyahay haddii ay tirayso midayni that's where oo runtii midayni jirtaan gobolkaas nagu soo xidhmaya deewaana xaggii kalena khayraadkii iyo xasanaadkii waa bada waajiba amran miyaana waana in mar haddii la yidhi xal la dhiso wadanka lagu soo kordhiyo wax ka maqan in dadku ay hal wado u midoobaan oo taamarka la dhameeyo marba mid loo jeedsado si ay easy u dhamaadaan ama waqti yar ay u qaadato dhismahani intii la kala tajabi lahaa horta wala taasa horta ugu wanaagsaneed waxa weeyaan xoog oo la mideeyo waxa weeyaan sinaarti baa abuurmaysa dhaqaale iyo wax kasta wuxuu wada noqonayaa hal mid waxa weeyaan waxaanay noqonaysaa qof kasta wuxuu u bixinayaa waxan waa wax fi sabilillah iyo waxa odhanaya maanta wada heblaaya la dhisaya wada reer degan iyo u dhow yihiin lama dhisayo laakiin waxaan filayaa waxa ka horeeyo ka hor bilaabmay wadooyinkii yacni qolo walba istirimeeshaadi bal wax fududeeya taas oo dhibaato arkayna ay saan competition tahay wax markay wax wanaagsan yihiin ma xuma waayo imika hadii qolo walba wadadeedii caratuul waxay dhigi karta dhigto de magaalada dhinaca walba looga baxo magaalooyinkii waaweyn waxay isugu soo ururaysaa in Soomaaliland wada dhisantay marka qaadaankuna runtii adaad aanu eegno dhaqankeenii hore wax weyn marka imka reer tahay qof ma baxsan karo imka wadada la dhisay hadii la dhaw wadadii reebel wax weyn waa la tirsan yahay waxa danta guud laakiin waa la dhuundhuuntaa marka inay reerahan isaa u fududeeyaan oo ay yacni competition ku soo noqdo way fiicnaa tahay wadooyinkii baa wada dhismay habase ahaatee waxa weeyaan tani waa ka weyn mashruuc inta ka weyn oo cidibad dhisi karto maaha marka iyadoo aan ku kalena la odhanayn waa la dhaafay horta qof kasta wixii uu ku darsado tug kasta inaad ku darsato waxa weeye waa baankaaga aakhirad buuxsanayso waa waxa weyn ilaahay dartii baad waxaan u baxsanaysaa oo aanad anaas wax la yiraahdo hadhow caqabadiis kugu dhacda aanad u baxsanayn waxa laga doonayaana waa wax yar xataa ka gaajoon karto kama gaajoonaysid wii ka daadimka istiraada shabinka gurigaaga ku noqo oo wixii hadhay wita bagsti yareed wixii ka iroodi wixii adigu hadhay bariisadii hadhay cadays karso yogoryaf adigu hadaan as a family London degan oo kale haduu israa wii kabarkuun ku noqo konton baan safe garee oo wadada ku bixin hadana dhowr bilood kale sidii si la eego week soo khaariji waxaagan way wadagto shaqo bayn wadano ku wax bin dukaamada ka iibsanayna waxa ku wara kartoon baa inoo xidhan hadaad waxaaga ku noqoto oo dhowr bilood mar konton bixiso waxa weeyaan de account-kii akhraad digatay يا ودي آيات كبدن القرآن كنا ينفرية إلى هنا واحدة ما يسوي كل من لابيا ويمكن واحد جاي بهدي الله ودن لها كون كل حكا دقتكم بفوق بيرة قف كستاو حسن الله سيف كوني سيف كرسة سيكون كلا فوق بيرة
marka wadooyinkan kalena oo reer way socdaan oo maanta meel laga joojiyo malaha waxa way ka horeeyeen wadada Ceergaabo wadadana waa mashruuc aad u weyn oo aynu ku proof garan karno Soomaaliland maxay qabsatay waana wada dhaqaalaha hadalka dawaab lagu celceliyo wada dhaqaale badan ay naga xiran yahay oo waxa weeyaan maanta iyadana wax soo saarkeeda easy inagu soo gaar lahaa inaguna badeecadaheena da businessku ay da easy u gaari lahaayeen marka bulshada isku soo xidhaysa weeyaan waxa weeyaan waa wado aad halbowle u ah xagga dhaqaalaha marka xitaa laga eego way shaqo la'aan iyo dhaqaaleyna ka fikirayna wadankana dhaqaalihiisa iyo horumarka waxa ugu horeeya infrastructure-ka marka ay meel wax la isu mariyo ay jirto waxa weeyaan laga yaabaa in imka dadka reer Ceergaabo ay meel kale wax u doontaan oo dimeeshin ku dhaw wax u doontaan badeecadahoodana u iibgeeyaan marka Soomaaliland baaba dhaqaaluhu ku soo shubmi lahaa dhinacna dawaaba ajarkii ilaha nin walba account-kiisa aakhirun buu buuxsanaya marka tanna ku darsada hal la wado waliba yaan loo eegin baan anigu oran lahaa yacni taasi wadadaasi ay tagtaa ay reerkee tii aad wax ku darsanayso fi sabilillah qof kasta ha ugu darsado aad baad mahadsantahay oo kugu soo noqon doonaa amran mar kale Faisa saddexdii bilood ee gudidan aad ka mid tahay ee wadada Ceergaabo lacagta u ururinaysa ay jirtay lacag intee la eg ayaad ururiseen xageed soo marisaan dadkii ku hawlgali lahaa lacagta markay dadka bilaadanki la yiraahdo waxba dalkaaga loo qabanaya qalbigooda iyo shucuurtooda markiiba si disqaabi u kacda oo ay qof walba oranaya ana 5 bixinaya ana 10 bixinaya 2 bixinaya marka runtii marka dambana waxaad moodayna in yar adkaato sidii markiiba dhaqaalo u soo xiroon lahaa runtii anigu waxaan gudi ahaan gudiga qolo waliba kale qayb qaabilsanta laakiin anu waxaan qaabilsanahay khasnajiga iyo lacag ururinta ayaan u qaabilsanahay marka ilaa hadda runtii lacag badan way soo xirootay laakiin lacagtaas oo aan ahayn wali mid ka baxsan tii aan dadka ka filayna yani dadka cusub ahayna dadkii maalintii 16 ku dhawaaqay marka runtii lacag aan runtii ka dhigay lacagtan aad ii sheegayso way ka baxsan tahay lacagtii habeenkii 16 eventiga lagu dhawaaqay waa lacagtii 16 habeenkaas lagu dhawaaqay ayaa ilaa hadda lacagta aan rajaynayna ama aan wadno ku jirno ururinteeda waa taa laakiin tii wali shacabka loo gudbiyay ee ka baxsanayd 16 wali may noo bilaabmin way jiraan shakhsiyaad aan badnayn oo bixiyay lacag laakiin aan wali aan fara badnayn marka waxa ka wada yani dadku ma dadaal badan ma muujiyaan marka lacagta isku qoraan inay markiiba waxay awoodi karaan ay bixiyaan laakiin dadka qaar waxay moodayeen wax awoodooda ka badan ay ku dhawaaqayaan marka runtii ayagoo aan u wada mahadnaqayno yani sida qalbigooda iyo shucuurtooda yani kalgacalka u hayaan dalkoodii haddana inay dadaal lagu darana aad iyo aad bay u muhiim tahay runtii lacag aad u fara badan baa anaga London ahaan noo soo xirootay wax aan dirnay way jiraan oo akoonka lagu shubay xawaalada sad maxaa la dhahaa akoonka daabshiil laakiin runtii waxaan moodaa anaga marka la eego Sheffield kale marka hore waxa tir gudiga xiriir ma leedaheen runtii sida ugu dhisqaha badan kole anaga wada xiriirnay gudoomiyaha gudiga Sheffield maxay talay ayaan dhow waxa la rajeynayaa inay gudiga UK oo dhan ay ku midoobi doonaan one email oo xiriir badan wada yeelan doonaan waan u gudbinay yani waan la xiriirnay gudiyada qaar Birmingham oo kale iyo Sheffield oo kale aan u gudbinay liisas ay dadka reer Sheffield ama dadka reer Birmingham ay ku qornaayeen aadna waan ugu mahadnaqayaa reer Sheffield oo ayagu already lacagtii laga rabay oo $150,000 ahayd maxaa la yiraahdaa 25% ayagu already gudbiyay oo diray oo shubay marka oo runtii aad mooday inay naga yara dadaal badan yihiin marka loo eego London ahaan laakiin London waa magaalo weyn oo waqti bay qaadanaysaa runtii laakiin iyagu way naga yara kooban yihiin marka runtii aad baan ugu mahadnaqayaa shacabka bulshada ku nool reer Somaliland iyo gudigooda ka hawlgalaya marka runtii dhawaan waxa laga yaabaa inay gudigooda midaysmi doonaan insha Allah marka aad leedahay gudida Sheffield way naga dadaal badan yihiin maxay qabteen idinkaga dadaal badan yihiin aad kaga dayan kartaan wallahi runtii ayaga dhaqaalaha u soo xirooday ee hadda aan ogahay inay u soo xiroodeen lacag already hadda konton kun gaadhaysa oo u soo xirootay marka de ma sha Allah waa wax lagu farxo runtii anaka ma oran karo yani maanta London way konton kun way noo soo xirootay laakiin waanu barkeed ayaanu mareynaa runtii marka waa ma sha Allah de yani waxa iyagu yani way isu dhowdhow yihiin oo waqtiga nooga saamaxaya ayaga yani magaaladii baa kooban dadkii baa is arkaya markasta anagu waxaan qofka iiska jooga markaan anigu iiska joogan qof weska lacag ka doonayo yani waqtigii baa yara bad yani kala fog
marka runtii iyagu laakiin dee gudi ahaan markay bataan magaaladiina kooban tahay dee si ka fudud bay ugu soo ururaysaa dan intaan anagu kale filayno inay noogu soo ururto marka maasha allah yani oo farxad weyn baan leenahay ana Faisa mas'uuliyaddan aad qaadeen waa mas'uuliyad aad u weyn idinka gudiga qaybta waliba garabka dumarka sideed isleedihiin wad uga soo bixi kartaan oo tusaale lagu dayda ayada noqon doontaan runtii anaku anigu waan jeclaan lahaa runtii inuu gudiga dumarku aad u sii badnaan lahaayeen waayo wax weeyaan dumarku ayaga mar walba lafdhabarta bulshada reer Somaliland ah runtii asaaska ama dhaqaalaha ugu badan ee wadankii galana haweenku ka yimaada runtii dibdhiska wadankana runtii waxa ka qayb qaatay wax weeyaan haweenka reer Somaliland ba ka qayb qaatay marka anagoon aan lahayn rag wax uma qabanayaan ama wax uma qabtaan oo aan u mahadnaqayo runtii rag badan oo active ah ama lacagtooda iyo xoogooda iyo maskaxdoodaba u huraa wadankii ay jiraan haddana yani dumarku siyaabo badan oo haday badan yihiin ay isu kaashan karaan ama garab isu siin karaan oo ay de albaabadii iyo guryihii iyo siyaabo fara badan bay u ururin karaan runtii marka imikana runtii waxaan rajeynaynaa in qayb badan baanu ka qaadan karnaa oo haweenka ay dhageysanaya reer Somaliland ee meel walba joogaana ay runtii uga qaadan karaan lacagta la filayana haweenku baa laga filayaa inteeda badan aan 3 laab marka 4 laab noqoto 3 laab in haweenku bixin doonaan insha Allah waxaan rajeynaynaa gudiyo hoosaadka sameyn doona inay noqon doonaan dumarka ugu activesan reer Somaliland yani lagu ogaa kartida badan ee dhaqaalaha badan ee ka qayb qaatay ee dibadhis badan ka qayb qaatay iskuul haday tahay jaamacadda haday tahay meelo badan yani usoo waqti badan usoo horay marka runtii dumarkaasaan filaynaa inay noqon doonaan subcommitteeyadeeda garab badan iyo dadaal badanna ay muujin doonaan insha Allah kugu soo noqon doona amran su'aashaasaan jecelahay adiga inaan ku weydiiyo ka dumar ahaan dumarka gudida wadada isku xidh Ceergaabo iyo Burco kamid ah idinku gundumar ahaan kaalin intee la eg baad isleedihiin mas'uuliyadda waad ka qaadan kartaan waad ka soo bixi kartaan si aad u noqotaan dadka idinka dambeeya tusaale ay ku daydaan wala runtii horta wixii Ilaahay fududeeyay ayaa fududaada arintana waa arrin khayriya oo yacnihii qofku ma haba iyo in loo magacaabo waa inuu isagu doonto waa isaga ayaa shaqaysanaya way wata leeyahay wasaabiq oo idinku u baratama khayrka iyo maqfirada Ilaahay ma jannana lagu iibsadaa marka anagu dumar ahaan anagu hooyo ah anagoo waliba de cararayno shaqo iyo hawl iyo hawlo kale noo dheerihiin haddana de dadaalkayaga de waxa weeyaan waqtiga aanu galino waxaan isleenahay waa waqti aad xagga Ilaahay kaga helaysaan ajarkiyo de waxa weeyaan taana waliba waxaan dhan lahaa aan uga faa'iideysanaya arintan haweenka Somaliland ma aha in la soo magacaabo waxa weeyaan in ay iyagu qofku يعني سان ليه سان أمين قرينا أما إنه وجود علينا بزنس كنا يا أرمينا عرورهنا العجينا معاش كنا تآخرة أقول مهمسن وضدا سوالي بوا صدقة تجارية يودوين كلام يدبا وواحد ضد متنا أجر كيد كوس عنه مركا خير كقفك إنه يسقوا صوتون طافي عن إنه كردون طماها وإنه يسقوا صوتون تقول هذا حكين وحكا قبتها waayo waxa weeyaan tan adduunyadana way gaabanta waa laga tagayaa waxa weeyaan marka waxaan oran lahaa idinkiisa soo qadima oo idinku waxa tiraadaan anaga isa soo abaabulayna anaga waxaan sameeynayna oo qof walba u baratama khayrka ayaan oran lahaa waayo waxa weeyaan wax yar oo aan inaga waxba yeelin ayaa marka la isku daro wax badan noqonaya waxa weeyaan markan ayaga London dadka ku nool 50,000 kama yara كسرنا هايين قياسي صح هاي وده كل سنس بالس مي بردوي ده إنك سومالي أردن تيسكود يشرنو هذانا سومالي أردن بابا إنك قيب قاعدة تايتاي واي قفك وحوين أي شركة ماشي يدوح كشته مزاج ده دستا أما وضع دستا أما واحد قبضها وروح وحكون ترى إنك سهر مود بينه كان هايو ده واحد لورين ترى ما هو لورين ترتي توسنين لا دقدقاقة طلعوا إركيا بالون تري مركا يعني هي دمر كسومالان درهان وحين ماشي وأهل بوله نيو ودده نيو ناركنا لكن مال كستوي هوين كسومالي دي يرك كسومالي كيماتين كي وحكو درس أنا أكانت كيسي بكشفته كو كستنا وانو بندقنا إنكو مركا وحويان سأل يا أي أمضك لا إسلام كبا يا أمضك لا قال ده أبا وحويان مركا وحي ددالك قفل بو كانوا قف كسو وقول وحي أد وضدا كسو درسته إن هذا تقول أكاونت كاجب بحسيتو بعشر سنوات. أنا كوجو عليه سؤال شيء إذا كجود دينا كدمر أهان سيد سلادين مسؤولية داود بس صبح تونتان.
dasaan markii hore baa sheegay ilaahay wuxuu noo fududeeyay waxa weeyaan anagu waa u diyaarnahay way waxa weeyaan de waa khayrna loogu yeeray khayr marka lagu yeerana de waa inaad sidii aad u filin karto u filiso waan kuu sheegay maadaama anagu commitment badan oo family commitment aan ku jirno shaqo ku jirno wax kasta ku jirno haddana de waqtiga iyaga isbeerka ay ku aan iska goynaba we are trying inaanu de wax ka midho dhalino rooda ka dumar ahaan dumarka kamid ah gudidan wadada Ceergaabo ay isku xidha magaalada Burco sideed isleediin mas'uuliyadan la idin saaray waad uga soo bixi doontaan maadaama dumarku ka wax qabad badan yihiin ragga runtii horta de ragga dumar gudiga ku wada jira runtii waxa weeyaan way u shiman yihiin hawsha oo hawshana kulliba markay voluntary tahay qofkii markaa u madax banaan initiative haya uu keeni karaa uu keenaya runtii anaga lacag ma nala xil saaray inaan lacagtana siyaabo badan ba qaabab kala duwan ba aan soo jeedinay runtii in lagu heli doono oo events ay ka mid yihiin oo masaajidda ka mid yihiin oo adigu meelaha toona marka anagu haween ahaan runtii shantayda haweenka meesha ku jira taguud aan kala soo inamada haddii rasiidis la qaadayo xaafadaha ka soo iibinaysiyo sababka mataskiyata laakiin mid runtii aan soo jeedinay baa jirto imikaba mar walbana waa la sameyn jiray sanad walbana wadankan Ingiriiska joogna waa lagu sameyn jiray kullayba ururo kasta oo dawladda bulshada xaafadaha kala degan oo ku sameyn jiray dabaaldega maalinta haweenka adduunka oo ku beegan hadii jeer bisha 8 bisha March hadii jeer ku haboon waxaan markaas la garanay runtii inaanu maalintaas u hibayno xafladda maalinta loo sameeyo maalinta u hibayno wixii ka soo baxa jidka Ceergaabo waxa kale oo runtii muhiim ah oo nuga sii jeednaa in haweenka reer Soomaaliya wadanka joogaan isku barto because aad la isma yaqaano badan runtii kulli baan ugu inkastoo wadanka dhowr 20 sano degan hadana door badan baan aan aqoon de taariikh baaba ku taala meesha haween badan oo professional haween aan aqoon baa jira oo madax ka ah meelaha wadanka kamid ah Ingiriiska oo aynaan garanayn oo hadana ku dhawaaq khabara jecelna inay wadanka contribute garaan laakiin garan la sida ku sameyn lahaayeen marka inay isugu yimaadaan haweenweynaha Soomaaliland degan xafladaas wixii ay contribute garaan isku bartaan wixii ka soo baxana loo hibeeyo okay yaa la fikradaas inaad 8 March aad qabataan xafladda oo runtii hadda fikrada ana iga timid markan laakiin hadana oo soo walba waan ku samaysan jirnay community ahaan waa la sameeyaa waxa dadka maadaama aan kana gudiga kamid ahay markan runtii hablaha markan soo jeediyana iyo gudiga oo dhan waa qaateen wax la diidi karaba ma because abaabulkeedana waa loo guuray jiraa laakiin anaga maamulanay lacagta la idin saaray London gudideedu waa 2 milyan lacag yar maaha waqti yarna kuma ururin kartaan miyaan habboonayn inaad mar walba eventiya qabataan sidaas oo kale ah waqtiga ay ku habboon tahay aad la eegataan si aad lacagta halka uga heshaan qorshaha ku jirta waxyaabaha anagu runtii strategic plan-ka aan dejisanay way ku jirta inaan inta inay ka tagin wixii opportunity ee soo maray events imanaya inaan qabsano oo aan ugu deeqno meesha oo ugu deeqno jidka Ceergaabo way nagu jirtaa horta runtii waa nagu jirtaa maha taa waan go'aansanay 8 March eventigan ama xafladan aad ugu tala gasheen maxaad ku soo bandhigi doontaan runtii horta xafladan saacadeedu waxa weeyaan 8 laga bilaabo ilaa iyo saacada dambe laakiin waxaan ugu tala galay in 2 saacadood hore haweenku isku bartaan cidii markaa ay sii maadaan la barto haweenaha professional dhakhaatiir baan leenahay saasheegay waxaan leenahay haween macallimiin engineer ay noo jooga waxa jirta runtii gabar Soomaaliland u dhalatay oo ah xildhibaan oo aynaan marnaba hadana soo arag ma daweyna soo casuumin bee mana arag hadana ku jirta gudiga London waxa ku jirta National Assembly London Assembly way ku jirtaa ay ka mid tahay runtii taas lafteeda waan u qoraya hadayna soo yeesho inay gasaf onarka ma noqoto runtii lidii haween badan oo kale way jiraan oo aynaan garanayn in la isku barto weeyaan inta dambe waa fanaaniinta Soomaaliland reer Soomaaliland runtii waa ballan qaadan inay iyaga laftooda contribute gareyn doonaan fikirku wali wuu noo furan yahay wixii aan ka samayn doono aan kugu soo noqon doonaa Faisal xafladda 8 March sidee u qorsheynaysaa maxaad ku soo bandhigi doontaan
xafladda horta 8 March adiga noo soo koobay waxaan ugu mahadnaqaynaa Rooda iyo community-geeda ayada xaafadan West London ka tirsan iyo dhammaan hablaha ayaguna fikirka la leh because waayo xaafad walba anaga gudi ahaan qof walba waxa mas'uulka uu qaatay oo xilka dhinaciisa uu qaatay qofka noodka deganka iska deganka waska degan marka Rooda runtii kaalinteedii ayada si fiican bay u haysaa runtii oo de aan garab taaganahay oo la shaqeyn doono laakiin waxa weeyaan wana xilalkii qof kasta saarnaabay mid ka mid gudanaysa runtii dadka xaafadeeda iyo de community-geeda hablaha dhinaceeda degan reer Somaliland runtii garab badan bay ku siineen aadna ugu mahadnaqaynaa waxaan filaynaa inay xafladaasi u dhacdo dhammaan dumarka reer Somaliland oo dham habeenka wax weeyaan haweenweynaha International Women's Day weeyaan waa maalinta haweenka laakiin anagu waxaan ka dhiganay Somaliland International Women's Day runtii maalinta haweenka reer Somaliland oo dham ay ku kulmi doonaan sida Roodana sheegtay dumar badan oo looyara jira dhaqaatiir baa jira maxaa dumar badan oo active oo yacni de aqoon leba jira marka in dumarkaas oo dhanina iskugu yimaadaan dhammaan fanaaniinta reer Somaliland way joogaan inay noqoto runtii isbarasho dhaqaalana ay ugu xalaal wixii ay ku deeqaan habeenka lagu soo gali doonana lagu deeqi doona wadada lagu contribute gareyn doona runtii waqti badanna saacadu aad bay u badan yihiin waxay noqon doontaa habeen ay dumarku ku nafisi doonaan maxay tolay heesa badan iyo fanaaniin badan oo ayagu qudhooda heesa badan wadada ku saabsan ay ku soo bandhigi doonaan gabayo lagu soo bandhigi doono runtii waxa xaflad nafisaad iyo maxay isbarasho iyo talo iyo maxay fikrad isweydaarsi intaba ku saabsan bay noqon doontaa insha Allah Faisal waxaan soo gaadhnay gabagabadii barnaamijkeena maxaa dadweynaha ku daawanaya u soo jeedinaysaa dadweynaha daawanaya laba wax baan soo jeedinayaa mid waxaan soo jeedinayaa horta waxa weeyaan dalkeena waxa weeyaan Soomaalidu waxay tanaana cidna uma maqna ceello uma qodna waxa weeyaan horta markuu warsaxan aad ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhagax dhigay mar labaad waxaan mahadnaqaynaa wasiirka madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland ahna gudoomiyaha wadooyinka Soomaaliland runtii farxad bi anaga noo tahay gudi ahaan hadaan nahay gudiga ceergaabo waayo qalabkii maanta yimi dhaqaalihii la soo bandhigay xalitoole marka runtii aad bay farxad noo tahay aan filaynaa weekend in wadada ceergaabo ay bilaabmi doonto insha Allah bidmillah labada mid aan farayo shacabka reer Soomaaliland wax weeyaan wadankeenu inagu ina sugaya cid kale uma maqnaa marka waxaan leeyahay qof kasta oo horta anigu dhaqaalaha aan hayo og inuu ku dhawaaqay ballanqaadka qaadayo qofka sida u ballanqaaday inuu dadaal la balaabo oo uu muujiyo oo uu la soo dadaalo lacagtii wadadina isaga sugaysa dhaqaalihii lagu bilaabi lahaa mid labaadna wax weeyaan inuu qof kasta ogaado xilku in isaga saaran yahay oo isagu gudi yahay oo wax alaala wixii maaha wadada ceergaabo qura dhaxay waxa wadooyinka jiro oo dhan anigu gudiga wadada ceergaabo kamid hadana wada wal oo reer Soomaaliland hadii dhaqaalaheeda la weydiyo qofka ugu horeeya bixinayaan ahay marka qofna yaan u arkin waxay wadada caalamkan wayna aragnay qof kasta wadanka ku nool yahay wadada halka ka tagtaa Northern Ireland bay isku xireysaa Scotland bay isku xireysaa marka dalkeenu sidoo quruxdiisa iyo bilicdiisa itraafkiisana u yimaado waa inuu horumarkiisa ka wada qayb qaadano 8 March waxaan leeyahay qof kasta oo reer Soomaaliland ama North joog ama West joog ama East joog ama South joog waxa rajeynaa inuu ka soo qayb galo sida ugu dhisqaha badan waxa loo arki doona addresska iyo ciwaanka inuu ka soo gali doono shaashada TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa rajeynaa inay ka soo qayb galaan qofkii isagu xirfad ama khibrad leh ama aqoon-yahana ama yacni dalka wax ku kordhin kara ama haweenka reer Soomaaliland la wadaagi kara fikradiisa dhibaatada wadankan taal xataa sidii looga bixi lahaa sida wadankeena wax loogu qaban lahaa ka is-og inuu isagu waxayna waanu ku soo casimeynaa waanaanu ku marti qaadayna hana iskeeno oo hala wadaago dumarka reer Soomaaliland maxay tahay wixii uu talo iyo tusaale uu siin lahaa sidii dhibka even wadankan yaala looga wada bixi lahaa dalkeenina wax loogu wada qaban lahaa ma rajeynayna inay ka soo wada qayb galaan aad baad mahadsantahay Faisal amran waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka arrimaha bulshada oo kaga hadlaynay wadada ceergaabo oo idinku gudideeda tihiin maxaa dadweynaha ku daawanaya aad u soo jeedinaysaa ugu dambeyntii bismillaahi raxmaani raxiim dadweynaha daawanaya waxaan soo jeedinayaa waxweeyaan wadada ceergaabo iyo wada kastaba dadka inuu khayrka laga qayb qaato in aan khayrka laga qayb qaadanayna aan yacnihi loo bixinin ama ri'aa naas ama jeclaysi ilaahay dartii loo bixiyo si ay waxa khayrkaas idinku yimaado oo yacni aanu qofka odhanin bilmetal runtii dad baa waxa laga yaabaa inuu yiraahdo wadadaydii baa hadhay maxaan tan igu wata waxaad ogaataa adigu ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaanu kuu diray wax alla wixii sadaqada inaad fi sabiilillah u bixiso sida aayadka quraanku ina farayaan khayrkana aynu ku degdegnayno dhaqaalaha bixino aynu ilaahay dartii aynu ilaahay maal gashano ama aynu ilaahay ama inooga baan ilaahay subxaanahu wa tacaala aayad quraan
واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف له وحويا إلهي مركا أماه كشدد وحويا ويدين لبنلابيا يعني وحويا واحد بيه ليسو مركا قف كستوبة أماه إلهي كشو وآخرة هذا أون يعني وشقيسو mar labaadna dee raaxadii adduunkana waad kaga qayb qaadanaysaa qofka maanta intuu halkaa fasax ka tagay wadadii ceergaaba toos u tagay tii salaxday gaari ku tagay tii dawga cad tagay dawga cad mareeti xagga galbeedka mare any wado waxa weeyaan caruurteena danto especially qurba jooga caruurtu waxa kaliyay markaaba eegaan waxa weeyaan wadooyinka wadanka iyo qarfaha marka qof kasta backgroundkiisa iyo waalidadii reerkiisa meesha deganaa haduu ilmihiisa u dalxiis keenayo de waxa weeyaan adduunyadana uu kaga raaxaysa aakhirana waa ajar u socda marka waxa weeyaan waa laba faa'iido adduunyaad ka faa'iideysatay aakhirana account-kii baad gashatay marka waxa weeyaan qofna lama kalifayo wax aanu naftiisu karayn qof walba wixii aad karayso adoon laga soo doonin telefoon lagu soo daran bixin aniga imka maalin waxay la kulantay waxaan sirrasiidada qaduma ruge qof kasta wax dad badan oo reer London xiguudi waana loo yimi waana laga qaaday waana gureysanaag bana qof baa naga qaaday de anagu dadkeena ma kala garan karno waxa weeyaan deese ilaahay dartii inuu qofka xitaa ka been abuuran hadii uu bixiyay hadii aan hayna uu yiraahdo waa af wanaagsan wixii ma hayo ma bixin karo hadii kalena de la bixiyo lacagtii ayaan oran lahaa maalintan hadaan soo noqdo runtii waa maalin dagaal samaysatay inagu malihin hadana inagu waxaynu ku maanta oranayna inuu ku sport garaynayna waa maalintii haweenka Soomaaliland ay yani horumarka iyo bulshada dhaqaalaheeda kaga qayb qaadanayeen boo ay macni muujinayaan cududooda oo maalin khayriyeyn inagu bedelayna insha Allah diilayna aan aad iyo aad baan mahadsantahay Rooda waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena arrimaha bulshada maxaa dadweynaha ku daawanaya u soo jeedinaysa runtii horta hablaha Fayse iyo Amran baa wada dhameeyay intii aan oran lahaaba wax kale oo runtii muhiim ah aan ahayn ilaahay hayna soo wanaag aanay soo wada jeesano wixii wanaaga ayaan runtii oran lahaa waan u mahadnaqayaa TV-ga Somaliland intii joogtay intii adduunyada dacalada joogtaan iska rabayno waan da salaamiya Somaliland baan markeedana waan mahadnaqayaa assalaamu calaykum aad iyo aad ayaad u mahadsantahay saddexdiinaba si wanaagsan ayaad barnaamijka uga qayb qaadateen waanad ku mahadsantihiin waxaan filayaa wadada ceergaabo shaqadeedu maaha wax hal mar dhamaanaya kale waan isku soo noqon doonaa inta aad ku jirtaan mashruuca aad iyo aad u mahadsantihiin waa tahay daawadeen waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena arrimaha bulshada oo marti noogu ahaayeen qaar kamid ah gudida wadada isku xidha magaalada ceergaabo iyo Burco oo dhinacayga midug xafadiyay Fayse Maxamed iyo Amran Bile iyo Roode Maxamed waliba intaan ku kulmi doono barnaamijkan lamida aniga iyo martida sharafta leh iyo Jamaal Xasan oo qaybta farsamada noo fadhiyo waxaan idinkaga tagnaa sida ay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh